xogayaha guud ee xisbiga wadaniga Somaliland mudane Khadar Xuseen Cabdi Looge ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhiga xildhibaan Maxamed Axmed Dhakol oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland lagana soo doortay gobolka Zool isagoo intaasi ku daray in qaladka uu xildhibaanku galay ee la xidhiidha maalinta 18 May uu ka wen yahay qaladka ay xukuumaddu gashay oo ah inay dhowri weyday sharcigii iyo xasaanadii dastuuriga ahayd ee uu xildhibaanku huwan yahay xogayuhu waxa uu sheegay in xisbiga wadani uu cambaareynayo xadhiga xildhibaan Dhakol jidka loo maray labadaba isla markaana uu bogaadinayo go'aanka ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku diiday inay qaado xukunka xildhibaanka xasaanada huwan iyo sida oo kale go'aankii uu gudoomiyaha golaha wakiiladu xadhiga ku cambaareeyay xogaye Khadar Looge ayaa talaabada ay ciidamadu ku soo qabteen xildhibaan Dhakol ku tilmaamay mid muujinaysa in dalka lagu dhaqayo xukun degdeg ah oo aan iclaamin iyo nidaam kali talisnimo waxaanu xukuumadda ugu baaqay inay sharciga dhowrto xabasiyadana ka sii deyso dadka uu sheegay in ay sifo sharci darra u xidhan yihiin oo uu ka mid yahay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee wadani mudane Maxamed Sidiiq Dhame oo maxaan ku raahday gurigiisii saqda dhaxal loogu dhacayo oo loogu daadanayo waxa ku soo baxayso ku muuqanaysa inaynu ku jirno xukun degdeg ah oo laakiin aan la iclaamin way sababtoo ah xukunka degdega dhaqankiisu waa kaasun haddaad macnaha xukun degdeg doonayso inaad ogaato waa in qofka tiyo aan sharcigi loo soo marin guriga loogu dhaco oo la xidho marka waa sharci waa taas oo run ahaantii aan la iclaaminin marka runtii arintaasna aad baan u cambaaraynaa dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka hadlayay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland mudane Cabdilaahi Abubakar oo dhowaan xisbiga wadani naqdiyay ayaa hadaladiisii ku tilmaamay kuwa muujinaya tayo xumida wasiirada uu madaxweynuhu soo xushay isagoo intaasi ku daray in wasiir Cabdilaahi Abubakar xilli ay shaqadiisu dayacan tahay oo uu u maaro waayay xal u helidda wax ka qabashada sababaha shilalka badan keena in uu ku mashquulsan yahay arrimo ka baxsan shaqadiisa wasiiraan kartidii lahayn aqoontii lahayn farsamadii lahayn oo dadka dhimanaya ku badbaadin lahaa aynu sheegnay waa warbixintii booliisku ay soo saareen waliba sababahana booliisku way raaciyeen inta aan idin sheegayba way ku dareen tayaxumada wadada baabuurta mas'uuliyad maxaan ku dhahdaa mas'uuliyadda darawalka qofka laga doonayo inuu hubiyo waxa weeyaan waa wasiirka halku shaqadaasi kaga mashquul lahaana waa ka arimahaasi ka hadlaya waxaan leenahay arimahaas run ahaantii waa arimo aad iyo aad uga hooseeya heerka wasiirnimo inaynu halka tagnaa hoosana maaha waa inaynu kor u hadalno waa inaynu siyaasad iyo ajende iyo qorshe iyo dawladnimo iyo ummadnimo ka hadalno inaynu siyaasadda shakhsiyadeedna oo aynu dadka ka hadalna maaha Xamse Xirsaxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika Hargeysa